waxay ifka macsalaamaysay iyadoo tiiraan la god gashay muxuu ahaa jacaylkii ku kalifay in tiro 2 jeer ah ay nafteeda goyso caashaqii sababay cudurka maskaxiyanka hamiyay u dhimatay haddaba yaa galaaftay nolosha fanaanada Gaasira waa qiso xanuun badan oo horey u soo martay fanka Soomaalida أهلا وسهلا ظاهر أنيقا ديار ظاهر عن استاد هين ظاهر أما ظاهر أما دوني ظاهر أما ظاهر أما دوني ظاهر روحي وحدود سياداهر نفسي بعد الشوق ظاهر xidigtii nasiibka xumeed ee Marwo oo kale dunidu waxa ay ka qoraan buugaag iyo taariikh qomanaan sano laga sheekeeyo magaceeda oo dhameystiran waa Marwo Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Gaasira oo ku dhalatay sanadii 1938 degmada Oodweyne waxa ay fanka ku biirtay horaantii 1960meeyadii Gaasira oo kamid ahayd hablaha ugu magac dheer ee soo maray taariikhda fanka Soomaaliyeed heesaheedana aad loo dhageysto waxa nolosheeda saameeyay jacayl xanuun badan oo ay u qaadeen ay jaal noqdeen dad aqoon u lahaa dhibaatada jacayl ee galaaftay nolosha fanaanadii Marwo ahayd waxa ay sheegeen in ay ibtilada galgacalka ee aan lala qaban ay ku bilaabatay iyadoo aan sanado badan fanka ku jirin ninka ay caashaqday oo ay in badan u bandhigtay jacaylkeeda lana garnaqsatay muusan dhagjalaq u siin xanuunka ba'an ee u sababta ahaa isaga oo sida la sheegay ku dadaalay in qalbigiisa uusan u jilcin qof aan rabin inuu la wadaago xiriir suurtagal ka dhigi karay nolol mustaqbalka kulmiso oo aan fiicneen ninkan oo dadka xogtiisa haya ay codsadeen in magaciisa aan la sheegin waxa uu ahaa hobal caan ahaa kaasoo dhagaha ka fureystay erga ay ugu tageen rag iyo haween fanka ku jiray oo xaaladda Marwo la socday bartamihii 1960 ilaa 70meeyadii cid walbana way ogaatay arintaasi waxa ay bilowday inay abwaanada ka codsato heesa intooda badan muujinaya dhiilo kana turjumaya mushkilada ku habsatay oo nafteeda ka suulisay hami kasto ay kala hay dunida dadku istiidahayo oo dabadeed heshiiyahay oo iyagoo dan qudha wadaba midbadoor simoodahay ey dulqaada adigunay waxa u curtay waqti ay isku maaweeliso humaaga rajo aanan ogeyn sida ay noqon doonto heesta la yiraahdo goobaale oo uu sameeyay Ciise Warsamo Samatar dhan cade waxa eriyadeeda ka muuqda cabasho iyo catow gar iyo garashiwa ah waxaana eriyadeeda kamid ahaa goobiyaalay meel aan gacaliga muuqan waa geeda baaqsaday arintaad igelisiyo halkaad igaga guurtaa igu farayareyste heesaha ay qaado way badan yihiin heesta adduunyadu dabeel oo ay qaatay miraheeda waxa ku jiray Allah daa inaa qoray inaad samaha diido darta u cadibnaadee ana dardaarankeeni wali siima deynine malaha yaga ma jiro fanaan uga badan Allah u naxariistay Marwo Cabdi Maxamed heesaha caashaqa ee catowga iyo calacalka heesaheeda waxa la sheegaa inay ka badan yihiin 100 halka fanaaniinta darsa ay sheegeen inay gaarayaan 100 oo ay kamid ahayd haweenka ugu badan heesaha Soomaalida kun 1980 ayay ka sii dartay xaaladeeda caafimaad fanaanada waxaana maskaxdeeda ku furmay mawjado dhibaatooyin ay u furdaamin kari weysay ugu dambeyntiina waxa asiibay xanuun maskaxda ah oo sababay inay 2 jeer dab qabadsiiso nafteeda oo ay dhaaftay dunida ay ku silicday sanadaha badan ugu dambeyntii sanadii 1995 ayay geeriyootay Gaasira waxayna ifka macsalaamaysay iyadoo tiiraan la god gashay Allah u naxariistay Marwo Cabdi Maxamed Gaasira waxay ahayd qof nadiif ah oo garab weyday intaas ayaana ku soo ekeenaya barnaamijkii aan kaga sheekeynayay qisada fanaanada Marwo Cabdi Maxamed oo ku magac dheer Gaasira waa qiso xanuun badan oo aan filayay inaad ka hesheen daawadayaal qaarkiin aan horey u ogeeyna ay kaga bogteen barnaamijkan waxaan isku dayi doonaa in qisooyinka caynkan oo kale ee qarsoon ee qusayfanka Soomaaliga aan idinku soo gudbiyo halkan anigu waan Sarkiin Xaashi Nuure dhanka farsamada waxa iga caawinayay walaalkay Yaangi Mooha anagoo isku duuban waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo